الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت يا وناق بدن عافيماد قب نولل وناقسن يا فرحة يا ندين رجينيا باتجين ونولها إنو سبب حنوننا soo weerara nafteena iyo jirkeena dagaalka ugu weyn waxa ay la galaan ciidanka ilaaliya nafteena ee loo yaqaan immune systemka ama difaaca jirka ibn aadanka hadaba muuqaalkani waxa uu kaaga digayaa saddex waxaanu ku tilmaamayaa saddexda uu inooga digayaa waxa ay tahay haddii saddexdan aynu badsanno ama aynu la saaxiibno waxa ay keenayaan noolaha ilin maqabatinka ay jirkeena inuu fursad ka helo ama batajiinka sida viruska bakteeriyada funguska iyo parasiteka kuwa ay nagu sababa xanuunadu inay jirkeena ay fursado ay ku soo galaan ka helaan ama inay ka adkaadaan difaaca jirkeena inay ka adkaadaan qofkuna sida uu ku xanuunsado oo sida mariid iyo dhulyaal ku noqdo saddexda marka koowaad aynu ka digaynaa waxa weeyaan kulanka gogosha ama waxaanu bulsho ahaan u naqaano galmada badan waxa ay yaraysaa ama waxa ay hoos u dhigtaa difaaca jirka waxa kale difaaca yareeya ama hoos u dhigi kara dhafarka badan qofka oo hurdo ku filan aan seexan xilliga habeenkii ama hurdadiisu ay ka yar tahay 5 saacadood iyo wixii ka hooseeya qodobka saddexaad ee kale muuqaalku inooga digayaa waxa ay tahay inaynu ka feejignaano balwadaha xunxun ee iyaguna daciifin kara difaaca jirkeena ee ay ka mid yihiin caleenta cagaaran cabista sigaarka iyo waxyaabahaasi ee iyaguna abuuri kara inay markaa ay naga faa'iideystaan noolaha pathogenku oo jirkeena ay soo galaan saddexda qofku hadii uu iska ilaaliyo ama uu taxadar weyn ka yeesho difaaca jirkiisu waa uu xoogaystaa saddexda kale ee aynu muuqaalka ku soo bandhigayna ama aynu ku dhiiri gelinayna bulshada waxa weeyaan waa nutritious food waa cabitaanada nafaqaysan in la cabo sida qumbaha cadka iyo sidoo kale lawska iyo qudaarta sida tufaaxa iyo cinabka qofku inuu ku cabitaan ka samaysto inuu isticmaalo qodobka labaad ee kale ee caafimaadka jirkeena u wanaagsan ama aynu ku ilaalin karnaa waxa weeyaan waa exercise oo si regularly loo sameeyo ama si constantly loo sameeyo waa jimicsiga haday orodka noqoto ama guculaha noqoto ama marka ay ahaato qofku inuu dhidido oo jirkiisa waxyaabaha excretionka ah ee khashinsaarka inuu ka baxo ee dhididku uu ka yahay taasina caafimaadka qofka ayay lama laabtaa difaaca qofkana way xoojisaa qodobka saddexaad ee muuqaalku nagu dhiiri gelinaya waxa weeyaan waa free from constipation in qofku calooshiisu ay socoto ugu yaraan qofku maalintii waa inuu saxaro u fadhiisan karaa 3 goor ama 2 goor 3 goor iyo wixii ka badan inuu qofku saxaro u fadhiisan karo 3 ayaa inta badan inta normalka ah wixii ka hooseeya constipation bay tilmaamayaan wixii ka badanina marka inay markaa shuban jiro adigu ilaa 5-6 hadii ay gaadho shuban baa loo tixgeliyaa inuu jiro hadaba qofku calooshiisu inay jilicsanaato ayaa iyaduna waxay ka qayb qaadataa caafimaadka jirkaaga inay xoojiso muuqaalka waxay noo saaran laba cabitaanka qumbacadka iyo lawska labadaasiba waxay ka qayb qaataan awoodda iyo difaaca jirkeenu inay xoogaystaan taasina inay fursad inoo siiso inaynu iska difaacno noolaha ilin maqabatinka ah ee pathogenka la yiraahdo inay soo weeraraya hadaba isticmaalka labadaas iyo qudaarta kale oo iyaguna kuwa markasta aynu ku recommend garayna ama aynu kula talino bulshadeena waa kuwa ka qayb qaadanaya difaaceenu inuu xoogaysto la sii wadaaga bulshada kale. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.